shir ay iskugu yimaadeen odayaasha deegaanka awrbogays ee gobolka Sool isla markaana socday 6 maalmood ayaa looga hadlay laguna beeninayay heshiis la sheegay in dhawaan uu ka dhacay deegaanka fiqi fuliye oo u dhaxeeyay maamulka Soomaaliland dadka deegaankaasi odayaashan oo saxaafada la hadlayay ayaa waxay sheegeen inaysan jirin heshiis ay wada gaareen dadka deegaanada bariga Sanaag ee Soomaaliland dadkii dhawaan warbaahinta ka hadlayayna ay ahaayeen shakhsiyaad aysan matalin beeshaas odayaashan oo arrimahaasi ka hadlayana waxa hadalladooda kamid ahaa halka xafladan lagu qabtay waxa ay ka hadlaysaa waxa weeye arintii maantinood ka dhacday ninkii sheegtay garaadka ee yiri waxaan ahay garaadna la yahay ma uu ahaa ummadda oo dhan baa waxaan u jeednaa iskuulkana inay halkooda ka wadaan wixii kale oo gacan ku darsanayaana inay ku darsadaan hawlahaana halkoodii sidii hore looga wada salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ma xukumo baabuurta uu meesha la yimi iyo kuwa ugu yimi waxa weeye waa sida odayaashii hore ay ka soo sheekeeyeen qaar walayaal ha ahaadeen xoolayaal ha ahaadeen waa baabuur soo ursaday ama guddaana kala yimaado ama kala yimaado waan u sheegaynaa ummadda min dal jooga iyo mid dalab jooga dhammaanba inaanu ahayn garaad inuusan u ahaynaa la yaaxmi inaan cid doorata jirin inan waxa halkaa laga sheegay waxa laga xijiraari jirin annagu waxaanu ka hadlaynaa ninka waxaanu ahayn sheegtay dadka ma matalo ninkaas ma matalo qabiilka laale axmed la yidhaaho waa la yaqaan waa qabiil qaran oo jiro adduunka laga yaqaan ma matalo waa la yaqaan garaadada dhulbahantay 13 garaad weeye annagu haddii aanu nahay reerka la yidhaaho ugaariyahan waa la yaqaan waxa jiray boqortooyo jiraaya oo weligeed jirtay garaad Saleebaan garaad maxamuud weeye halkan waxaan isugu yimid xaflad taasoo socotay 5 casho taasoo laga hadlayo in hawshii ka dhacday boqortooyo lagu beeniyo taasoo laga hadlayo inaanu ninkaas ahayn wax garaad sheeganaya oo beeshana laya axmed ay dooratay inaanu ahayn in iskiisa ka soconaya uu yahay xaqiiqadana waxa fiican dadku inuu runta sheego beentu waxa ma tarto waxaana loo baahan yahay in sida ay xaqiiqdu tahay looga hadlo ma aha garaadna laya axmed mana jiro mana aqoonsanin waxaan munaasabadana kaga hadlaynaa oo la soo weeshiikeeda muddo 5 cashaa arrintii gudafada ka dhacday fiqriye ee maxay tahay ninkii beenta sheegtay waxaan ahayn sheegtay oo eeyay magacna leeyahay oo sabay madaxweynayaal iyo kuwa garanaya oo fariixada inta hore ay soo wada lacag qaafo aad iyo aad baan uga dhaxsanahay waxaan sheegnaa Soomaaliyeed yaanu ku garaaday garaadey waa yaqaana garaadada baahan wax dhexdo toban waa la gaar ahaan garaadka weeyaan wax weeye garaad Saleebaan garaad maxamuud horay ayay ahayd markii shir noocan oo kale uu ka dhacay caasimadda maamulka Khaatumo ee Taleex laguna beeninayay heshiis maamulka Soomaaliland oo tiknika iyo ciidamada la midoobay Soomaaliland